waxay ahayd masiibo iyo dhacdo xanuun badan oo aan marnaba la malaysan inay Hargeysa ka dhacdo inkasta oo qadar eebba ay ahayd waa dab holaca iyo qiiq oo cirka isku shareeray oo 8 fiidnimo ee xalay ka kacay bartamaha suuqa ugu weyn Hargeysa ee magaciisa loo yaqaan Waaheen kaasi oo geystay khasaare balaadhan oo hantiyeed dabkan oo socday dhowr iyo 10 saacadood ayay ciidamada damdamiska ciidamada kala duwan ee Somaliland gurmad ka yimid dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo shacabka oo iskaashanaya ay la tacaalayeen tan iyo 8 fiidnimo ee xalay ilaa 12 duhurnimo ee maanta taasi oo ciidamada dabdamisku dhib badan kala kulmeen suuqa oo marka hore ahaa mid cidhiidhiya isla markaana aan lahayn meel loo maro maadaama uu ahaa mid isku rarana dabkan oo aan ilaa hadda la ogeyn waxa sababay iyo sida uu ku kacay ayaa geystay khasaare kala duwan oo iskugu jira agab kala duwan malaayiin dollar oo lacaga dhaawacyo soo gaadhay ciidamadii daminaya dabka iyo qaar ka mid ah dadkii lahaa meheradaha dabku ka kacay kaasi oo dhammaanba baabiiyey alaabihii iyo ganacsiyadii kala duwanaa ee halkaasi ka jiray wallow aan ilaa hadda la sheegin khasaare nafeeda uu geystay dabkaasi madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeeray bartamaha suuqa magaalada Hargeysa kaasi oo khasaare u geystay dabkii xalay halkaasi ka kacay isagoo madaxweynuhu magacaabay guddi ka howlgasha masiibadii halkaasi ka dhacday waxaanu sheegay in loo sii daayay guddida $1 milyan si ay ugu sii howlgalaan dhinaca kale madaxweyne Biixi waxa uu maanta kulan degdeg ah qasriga madaxtooyada Somaliland iskugu yeedhay ganacsatada waaweyn ee dalka rugta ganacsiga iyo xubnaha guddida heer qaran ee madaxweynuhu u igmaday maaraynta masiibada dabkii ka kacay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa haddaba qaar ka mid ah madaxda siyaasiyiinta dalalka jaarka la iyo kuwa xidhiidhka la leh Somaliland ayaa murugada la qaybsaday isla markaana garab istaag u muujiyay dadweynaha Somaliland ay waxyeeladu ka soo gaadhay dabka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yidhi waxaan murugada la qaybsanayaa walaalaha ganacsatada ee dabka ka kacay suuqa Hargeysa oo galaaftay hantidooda waxaan fadliga bisha Ramadaan awgeed alle uga baryayaa inuu ka siiyo bedel khayr badan hantida halkaas kaga gubatay ayuu yidhi waxaanu madaxweyne Farmaajo ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay u gurmadaan walaalahooda hantidooda ku waayay masiibadan sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa yidhi sidan waxaan aad uga xumahay dabka caawa ka kacay suuqa weyn ee Hargeysa kaasi oo geystay khasaare baaxad leh waxaan xanuunka la qaybsanayaa ganacsatada xoolahoodii ku waayay iyo dadka kale ee waxyeeladu ka soo gaadhay waxaan eebba u weydiinayaa bedel khayr leh iyo samir waxaan ku baaqayaa in loo gurmado walaalaheena dabku aafeeyey annaguna waxaan kaalin ka qaadan doonaa gurmadkaasi ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya Abiy Ahmed oo qoraal ku qornaa afka Soomaaliga oo uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu ku yidhi waxaan aad uga naxay kana tiraanyooday dabka ka kacay suuqweynaha bartamaha Hargeysa kaasi oo khasaare ballaadhan u geystay hantidii shacabka hadda lama qiyaasi karo khasaarahaasi waxaanu shacabka Somaliland la qaybsanaynaa murugada dhibkaasi ku yimid waxaanu u sheegaynaa inaanu garab taaganahay waqtigan aadka u adag waxaanu eebbe ka rajaynaynaa inuu khasaarahaas dheef ugu bedelo xilligan aanu ku jirno bisha barakaysan ee Ramadaan eebba ayaana leh xaggiisana waynu ku noqonaynaa waxaana xusid mudan in wafdi ka socda dalka Itoobiya ay galabta soo gaadheen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyagoo u yimid indho-indhaynta khasaarihii sababay dabku dhinaca kale madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo fariin u soo diray shacabka Somaliland ayaa sidan yidhi waxa murugo weyn nagu ah dabkii xalay qabsaday suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee Waaheen dhibaatadii xalay ka dhacday magaalada Hargeysa waa mid aad iyo aad noo taabatay haddaanu nahay reer Djibouti waxaanu garab taaganahay shacabka walaalaha nahay ee reer Somaliland waxaan shaki ku jirin inay ka bixi doonaan dhibkaas oo ay dib u dhisi doonaan magaaladoodii quruxda badnayd annaguna waanu garab taaganahay sidaan had iyo jeerba waxba uga hagranin waxaan saaka la hadlay madaxweyne Muuse Biixi waxaana berri Hargeysa iman doona wafdi ka socda Djibouti shacbi weynaha Somaliland iyo dalkoodaba Allaha xifdiyo oo dhibkan khayr ha ugu bedelo insha Allah sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson oo fariin u soo diray dareenkiisana la qaybsaday shacbiga Somaliland ee xalay masiibada dabku ku habsatay waxa uu yidhi waxaan aad uga xumahay inaan aragno dhibaatada ka dhalatay dabka Hargeysa ka kacay ee burburka inta leeg ka kacay suuqa furan oo ah halbowlaha dhaqaalaha magaalada kaasoo saameeyay ganacsiyo badan oo yaryar iyo qoysas ra'iisul wasaare Boris Johnson isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi magaaladiinu mar kale ayay dib u dhismi doontaa
UK-na waxay ku dadaali doontaa inaan taageerno dadaalka dib u dhiska ee Somaliland. sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa dareenkooda la qaybsaday shacabka Somaliland. dhanka kale midowga Yurub ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dabka ka kacay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa, iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin muwaadiniinta reer Somaliland iyo dawladda siina wadi doonaan taageerada Hargeysa iyo dadka reer Somaliland. dabkani ayaa noqonaya kii ugu weynaa uguna horreeyay khasaarihii ugu badnaan ee geystay ee ka kacay inta la ogyahay magaalooyinka Soomaalida iyo Somalilandba. waxyaabaha ugu murugada badnaa ayaa ahaa dad nabad kaga hoyday meheradahoodii oo bad qaba, balse u yimi iyagoo maal iyo moodba wixii dhex yaalay ay dabas noqdeen. maxamed muuse cabdilaahi maxamed jeesto, Gobonimo TV, Hargeysa.